السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف كسته oo igula nool dalka Mareykanka waxaan ogeysiinayaa ogeysiis farxad gelin doona isla markaana uu ku farxi doono ogeysiiskaas oo aan ugu tala galay walaalaha aan ku wada noolahay dalka Mareykanka. ogeysiiskaas oo dhowr qaybooda. ogeysiiskaas waxaan rabaa qof walba oo walaalkay ah oo al-shifa ku xiran codsigaan wata wuxuu yahay gaarsii walaalaha kale. أجر بعد كهلي دونتا ربنا جنة كوسين دونا إن شاء الله تعالى. أوجسيس كوجه الرأي بيش السديدات بلو جدا وحنكسر وجهنا هاي أما أنيمان دونا أو ولا لفر بدن أو آد يجو قالئة أي هلك يجي يمادين أو هلك يجو يمادين عدسي يسود ديبتين وها نوجو إما أوهايو حنقول بشارنا يا هرت مدة كوبات أوهايو بيش السديدات بلو جدا يعني إن شاء الله تعالى تيجي دونا وحنا نقص جنان دونا هدي الله أود له أو إدمه إلا بيش السجاد دمات كذا وهدي الله أود له حق سايك النقطة وحنا نقول تلاقي أنت هنجوجو ووقت جا بدنا نقعدنا يا يلا ضدك رنهانتي أندريميو لبعتوين كعليس كاست وحنا وقت جا وقعدنا يا ولا لها مركل الربائين وحلاقبته مالين يلبا يويج وحكمة تريكرو haddaad rabto inaad qof muslim caawisid waa inaad time gelisid isla markaan aad u hurtid waqtiga ka ugu qiimaha iyo qaayaha badan. waqtigaas waxaan rabaa inaan la qaato walaalaha halka ku sugan insha Allah ta'ala wixii inta ay la xanuunsaneen waxaan alla baryin subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay garab igu siiyo biidnillahi ta'ala oo ay ka bogsadaan insha Allah ta'ala. halkaas muddadaas aan ku sugnaan doono ee bisha ah iyo dheeraadka waliba haddaan insha Allah xagga Allah ay ka noqoto waxaan samayn doonaa dhammaan wax kasta aan isleenahay walaaluhu way ku shifoobayaan ama way ku caafimaadayaan sidii in dadkii ay yimaadaan guriyihii in loo soo cilaajiyo insha Allah ta'ala guriyihii loogu tago si kali iyo si jamaacado. qodobka waa ogeysiiska koowaad. ogeysiiska labaad reer Minneapolis waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo saad ogsoontiin iskuulaadka way xiran yihiin. waxaan qaybtan ku soo darnay oo mar dhaxdaasan aan soo gudbiyay in aan bilownay qaybta private waxa yimi macallimiin khayr badan Allah siiyo wadaadada ilaahay meel joogan baha barakeeyo wadaadada inoo soo batay ayaa waxaan go'aansanay in aanu ballaarino oo aan ka dhigno qayb walbo haday tahay kii jaamaca rabay haday tahay kii kaliga rabay haday sidoo kale tahay xaafadaha waliba muhiimad gaar ay noo leeyihiin qof walba xanuunsan oo dhiban oo khaasatan Minneapolis ugu yimaada meesha ugu daran ay ka calaacalaan ama ay ka xanuunsadaan waxay tahay xaafadaha. qof walba wuxuu ku leeyahay guriga ma seexdo guriga waxba iga eriyanaya intay ka dhacday caruurta waa sidan waxaan u sameyn doonaa biidnillahi ta'ala xaafadaha maalmo gaar ah inaan tagno insha Allah ta'ala sida khamiista iyo jimcada. lambarka hadda ku soo baxay soo wac iska diiwaan gal insha Allah ta'ala biidnillahi ta'ala. qodobka u dambeeyaan ku soo gabagabeynayo waxaan bilaabi doonaa oo si khaas ah aan soo tabin doonaa quraankii jimcada ee dadka oo dhan la saarayay ee ahaa quraanka oo dhan sidee waxaan sameeynay sanadkii hadda la soo dhaafay inaan faamilada dhan iskugu yeerno wadaado badan iskugu yeerno maalinta jimcaha geelinka dambe lagu dhameeyo quraanka oo dhan. faamilo badan baa ka faa'iideystay tahliishooda hor u soo qaatay quraanka rabbi la dhamaynayo inta soo wadaad ama inta soo tufo kala gadisan ay tufayaan dad fara badan bilaahi subhanahu wa ta'ala caafimaad ugu daray dad badan baana ka faa'iideystay. jimcadan soo socota teeda kale ma hatan hadda soo socota maanta waxaan maraynaa arbaco bishuna maanta waa 5 berina waa khamiis jimcada soo socota 7 jimcadeeda kale insha Allah ta'ala isla bishan 7 ayaan bilaabi doonaa. lambarada hadda ku soo baxay iska diiwaan gali maxaa yeelay meeshu way kooban tahay waxaana wadi doonaa kaliya hadda bishan 7 inta ka dhima 2 7 kaliya aan ku tala galnay insha Allah ta'ala maxaa yeelay iskuulaadka la furi doona waqti la isku meeli doono wadaadadu way kala mashquuli doonaan. sidoo kale hooyooyinku hadda waxay haystaan wax ilmaha ka reebo ilmahoodii qaan gaaray ama ilmahoodii roonaaba ilmaha ka reebi kara laakiin hadda wax ka reebi kara ma helayaan qabowgi baa bilaabanaya marka sifo nimcadan alla inoo siiyay ee ah xilligan maaragtay kulul sifaan uga faa'iideysano ayaan ugu tala galnay. ogeysiisyadaas oo dhan amaan ay kugu yihiin gaarsii qof walba isleedahay waa walaalka ajar buna ka heli doona insha Allah ta'ala. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.